kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal asxaabteena cusub asxaabta kasii horeysay bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda YouTube-leyda iyo social media-sha kale dhamaantii walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib daawadayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdo ka dhacday magaaladan aan ku noolahay Edmonton. dhacdadani waxay dhacday bishan aan ku jiro December 9 sanadka 2020 laba gabdhood oo Soomaaliyeed ayagoo ka adeeganayo Southgate Mall-ka ku yaalo Southgate oo magaaladan Edmonton dhinaca south ka ku yaalo ayuu nin ku weeraray labadaasi gabdhood waxay ahayn laba gabdhood oo xijaab wato ayuu nin cadaan ah weeraray ninkaasi oo la sheegay inuu yahay 41 jir gabdhahaasi kulli ani hadda magacyadooda halkan kama sheegi karo laga yaaba sawirkooda ama muuqaalkooda haddaan arko inaan garan karo ayaa dhici karto waayo magaaladan ku noolahay ayay ka dhacday dhacdadan lagana yaaba inay ka mid yihiin dadka ku xiran channelkeena dhibaatadaas ayaa magaalada Edmonton ka dhacday ma ahan wax cusub maalin walba ayay dhacdaa dhacdooyin qaar ayaa jiro oo la report gareenin ama police lagu report gareenin gabdhaha xijaaban Soomaali ha ahaato ama muslimiinta kalaba ha ahaatee gabdhaha xijaaban mar walba target waaye dadka naceebka ka buuxo waxay bartilmaameedsadaan gabdhaha xijaaban ama xijaab wato dhimasho ma jirto ilaahay mahadiis ilaahay wuu ka badbaadiyay balse arintani waxay noqotay arin soo noqotay toddobaad ka hor ayaa gabar sidan oo kale dukaamada laga adeegto lagu weeraray gabadhaasi waxay ahayd gabar muslimad ah oo xijaaban waxaa sabab looga dhigay mask ma qabtid geedka waji lagu xirto ma qabtid ayaa sabab looga dhigay xijaabkeeda intay xiratay ayay afka ku xiratay ma ahayn qof isagoo mask qabin dukaan soo galay laakiin waxaa lagu xujeeyay mask waa inaad xirataa mask ma qabtid qofka hadduu wanaag rabo wuu ku sheegi karaa mask soo xiro ayuu ku oran lahaa laakiin intuu ku weeraray ama ku aflagaadeeyay ama ku caayay kadib sabab inuu ka dhigta ma ahan maaragtay mask ma qabtid marka sheekadu mask ma ahayn laakiin ujeedo kale ayaa jirto gabadhii gacan ayaa lagu qaaday dadkii u dhow meeshaas dadka u dhow ayaa ka celiyay sheekadaasina saas ayay ku dhacday marka waxaan leeyahay gabdhaheena Soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaan gabdhaha muslimiinta oo xijaaban meel kasta aad martiin madaxiina kor u qaada waxaa jiro dad fara badan oo marka wajigooda aad fiiriso ku qoslo qof wanaagsan iska dhigo laakiin naceeb ka buuxo hadday fursad kugu helaan ku dhibaateeyo ayaa magaalada ka buuxo wadanka ka buuxo meel walba yaa la idin sirin qosolkaas beenbeenta yaa la idinku sirin dad badan oo naceeb ka buuxo ayaa ku nool dalkan gaar ahaan magaaladan aan ku nool lahay hadalkan waxaan aaminsanahay hadda ka horna inaan iri ama YouTube-keena ku jira ayaan aaminsanahay dhibaatooyin noocan oo kale ayaa hadda ka hor dhacay aan ka hadlay mar walba waxaan idinla talinayaa haddii aad awoodiin wiilal walaalihiina la socda dukaamo marka aadaysiin taasi hadday dhici wayso laba ama saddex ku socda gabar kaligeed socoto oo xijaaban waa la dhibaateenayaa dad baa diyaar u ah inay gabdhaha ataagereeyaan xijaabkaasi ay qabto lagu raaco marka walaalahay waxaan idin leeyahay Edmonton kaliya ma ahan guud ahaan dalka Canada kaliya ma ahan haddii aad ku nooshahay Ingiriiska oo kaleeto Yurubta oo kaleeto Mareykan haddaad ku nooshahay haddaaba qurbo ku nooshahay Westernka runtii dhibaatooyin badan ayaa jiro muslim naceeb ayaa jiro waxyaalo badan ayaa jiro oo marka maaragtay dadka islaamka ah ama dadka madowga lagu dhibaateeyo waxaan idin leeyahay arintaasi ha laga foojignaado waxaan ku adkeenayaa gabdhaha dhalinyarada oo waliba high school ama iskuulada aado madaxiina kor u qaada dadkan intooda badan caloosha ay ka xanuunsan yihiin naceeb ayaa ka buuxo madaxiina kor u qaada ayaan idin leeyahay walaalahay lagu dhibaateeyay Edmonton gaar ahaan Southgate Mall-na aad iyo aad baan ka xumahay Edmonton dadka intooda badan way is yaqaaniin Soomaalida
Edmonton ku nool waa dad isku xiran oo iska warqabo. Laga yaabaa dad aan aqaano inay yihiin, inkastoo aan hadda caddeyn karin. insha allahu tacaala waxaan leeyahay aad iyo aad baan ka xumahay, fadlan ha la iska ilaaliyo. dhacdooyin noocani way soo lalaabteen, waa waxa joogta ah. markay wax dhacaan waa inaan cashar ka baran. ilaahay nooma keenay haddii ay naf noqoto ama gabar la dilo maanta ma dhicin, ilaahay uu ka badbaadiyey. maanta inay cashar noo noqoto waaye, ma ahan inaan sugno ilaa beri oo dhimasho imaado. wararka laga sheego gabar Soomaali ayaa la dilay ama gabar xijaab qabto ayaa halkaas lagu dilay, inaan maqalo waa laga fiican yahay. dhacdooyin noocani oo kaleeto waa digniin ha noo noqoto. aan ka fiirsano insha allahu tacaala meelaan mareyno, dad aan la hadleyno. markasta markaan soconno waa inaan group ku soconnaa ama saaxiib la soconnaa, kaligaa ha soconin. telefoonkaaga mar walba diyaar ha kuu noqdo. haddii ay wax dhacaan saad camera duubto, at least evidence la helo. maxkamadda haddii aad aado, maxkamadda kan ku dhibaateeye ayaa kaa horeeyo. cadaalad meesha ma taalo. maxkamad marka la aado oo la imaado oo lagu arko inaad tahay qof madow ah ama qof muslin ah ama qof xijaab qabo, dhinaca kale unba loo helinaya. taasi waa xaqiiqa. maalin walba ayaan aragnaa, maalin walba ayay dhacdaa. marka telefoonkaaga markhaati ha kuu noqdo. at least haddii aad video haysato, kii ku dhibaateeyo isaga camal ah oo kaa horeeyo maxkamadda fadhiyo, jid uu xaqaaga ku xaqiri karo ma haysto, maadaama aad caddeyn ka hayso ama video ka hayso. sidaa darteed dhammaantiin waxaan idinla talinayaa inaad kaligaa soconin, aad qof la socotid. haddii ay wax dhacaan oo qof isku afdhaaftiin, kaamiradaada diyaar ha kuu noqoto ama telefoonkaaga mar walba diyaarso. wax kastoo dhaca duub. dadka qaarkood ayaa ka cabsado inay video duubaan. haddii xataa aad ka cabsato inaad qofka wejigiisa aad ku qabato, record taabo codka iyo waxa dhacayo iyo hadallada halkaas ka dhacayo oo dhan, telefoonku ha kuu duubo. marka evidence ayay kuu noqonaysaa. waad ogtihiin, qof walba wuu og yahay, laakiin marmar weyna hoos marta waa iska iloobi karaa, especially markaad xanaaqdo. ma xasuusanaysid inaad wax duubto iyo waxaas kuuma muuqdo. waxaad isleedahay qofkan iska dhici, caay hadday tahay u jawaab, gacan hadday tahay iska dhici ayaad isleedahay, laakiin telefoon lama xasuusto. waana wax ugu muhiimsan aad la dagaalamaysid. intaad qof gacan ku qaadi laheyd ama hadal u jawaabi laheyd, tartiib adigoo degan telefoonkaaga soo baxso, wuxuu raba ha sheego, adi videogaaga iska duubo. intaas ayaan idinla talin lahaa. waxaa kaloo aan halkan uga tacsiyadeynayaa wiil habeen hore lagu dilay magaaladan Edmonton, oo runtii la sheegay wiilkaas 20 ilaa 25 da'diisa ka dhaxayso. waa wiil dhalinyaro ah. runtii waxaa la sheegay dilkaasi inuu yahay dil aad iyo aad u xun, oo maaragtay xabado fara badan ay ku dhacdo cunugaasi ama wiilkaasi. si xun ayaa loo dilay. waxaan leeyahay ehelada iyo qaraabadiisa, qoyskiisa, aabihiis iyo hooyadiis, ilaahay samir iyo iimaan ha idinka wada siiyo. guud ahaan ilaahay samir iyo iimaan ha naga wada siiyo. waxaan maqlay hooyadiis inay ku maqan tahay Africa, aabihiisa joogo dalkan Canada. waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo. ma idinla wadaagi karo macluumaadkiisa dhammaystiran wiilkaasi, magaciisa iyo qoyskiisa, arrimahaasi inaan idinla wadaago ma rabo, balse waxaan rabay kaliya inaan uga tacsiyadeeyo oo aan maaragtay adinkana idinka codsado inaad maaragtay u duceysa inuu ilaahay u naxariisto wiilka, samir iyo iimaan qoyskana ilaahay ka siiyo. inaad u duceysin un baan idinla soo wadaagay insha allahu tacaala. dhacdadaasina waxay dhacday habeen hore. cidda ka dambeysay, sababta loo dilay, waxaasi oo dhanna ma idin faahfaahin karo, annagoo ixtiraameyno privacyga qoyskaasi. arrintaasina intaas ayaan ka oranayaa. ilaahay u naxariisto wiilka, aabaha dhalay, hooyada, walaalihiisa, eheladiisa iyo qaraabadiisa, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, samir iyo iimaan allah naga wada siiyo. runtii dhibaatooyin badan ayaa jiro. qurbaha dadka wadanka joogo waxay u maleynayaan qurbaha meel janno tahay, oo waa lagu soo wada cararayaa, dadaa badgalo, dadaa biyo ku dhinto, inuu mar uun halkan gaaro. laakiin dadka joogo dhibaatooyin badan ayaa haysto. haddii aan halkan ka sheegno dhibaatooyin haysto aan dhahnana, dadka dalka joogo waxay u maleynayaan in lagu xaasidayo. marka waxaan leeyahay noo soo duceeya. qurbaha runtii dhibaatana way ka jirtaa. qof ilaahay u fududeeyana raaxo iyo nolol wanaagsan ayuu ku nool yahay.
dadka dhibaato ku noolna way jiraan oo culeys badan ayaa iska jiro. ilaahay qof walba meeshuu jooga ha ku ammaansado, ilaahay ha naga badbaadiyo shartooda, dad wanaagsan oo laga ammaan helo aan noqono annagana insha allah. aad iyo aad baad umahadsantihiin mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عليكم يا السلام.